السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسود بهذا الجنال كيف فضلا داقو عصبتها كصوبير فاميلك سبسكرايب كي تابو هذه أما صنتهاي متى يقف ربو إنه كجن عصب كريبتو كارنسي هدي أعطاي فضلا نقول بهانا بمسا فيديو جان هدي أعلن ويلي سودك سنين أبليكيشن كفرصة وين أيها سبتها صوبته وحقيقين يعني $20 وويلكم ماشي يكون قرنتها هاي ريفيرال كود كله فوق kadib waxay gelisaa code-kayga sida hadda u jeedaan waa halkan page marka soo kicisid wuxuu ku tusinaa sign up iyo login halkan aad ugu jeedid marka waxa waaye waa referral code-kayga waaye haddii aad isticmaashid $25 welcome ayaa helaysaa haddii aadan isticmaalinna waxa waaye eber ayuu ku noqonaa markii aad isdiiwaan gelisid marka waa fursad ay ka faa'iideysid taas marka ka soo gudbo waxa kaloo rabaa inaan ka hadlo marka habkaad cash out u sameyn lahayd kasoo qaad waa ku jirtaa crypto coins iyo wax baa ka iibsatay faa'iido ka heshay ama suuqiya hoos u socdo waxa rabtaa marka coinkaada inaad iska iibisid waxa rabtaa lacagtaada inaad soo ceshatid okay ma xumo marka waxa ku tusinaa waxa u baahan tahay number 1 inaad sameysid wax la yiraahdo fiat wallet waxa ku sameyn kartaa si aad u fahantid okay application marka soo kicisid waxa arkaysaa home account iyo track iyo card meesha ay ku qoran tahay account ayaa ku dhufanaysaa halkaas ayaad ku dhufanaysaa account marka ku dhufatid kadib qaybta ugu hooseeya waxa arkaysaa meel ay ku qoran tahay fiat wallet ayaad ku dhufanaysaa fiat wallet marka ku dhufatid kadib aniga hadda hoos u soo dhaadhaco already account waa ku leeyahay wax waa isku soo diray coinsna qaarkood waa gaday saad u jeedaan okay marka waxaa sameynaysaa meesha ay ku qoran tahay set up new currency halkaas ayaa ku dhufanaysaa halkaas markaa ku dhufatid kadib British pound ayaa tagaysaa British pound markaa tagtid Britishka markaa ku dhufatid kadib wuxuu ku dhahaa I understand agreement-gan inaad tigsiisid waaye boxgaas yar ayaa tigsiinaysaa waxaa lagaaga baahan yahay qaybtan waa address xaafadaada ama gurigaada ama meesha aad degan tahay ayaad halkan ku qoraysaa get started ayaa ku dhufanaysaa get started markaa ku dhufatid kadib detailkaada dhan halkan ayaa gelinaysaa markaa gelisid kadib submit information ayaa leedahay sidaas ayaad ku samaysatay walletkaada dhankaas markaa kasoo gudubtid kadib waxaa sameynaysaa labada kaara markaa rabta inaad isku xirtid crypto iyo bangigaada caadiga adiga aad isticmaashid okay haddii saas ay tahay waxaad tagaysaa meesha ay ku qoran tahay homeka markaa kusoo laabatid meesha kore ay ku qoran transfer dhinaca trade iyo transferka ku dhufanaysaa transfer markaa ku dhufatid kadib waxaa kuu soo baxayo deposit ku dhufanaysaa kadib laba option ayaa kuu soo baxayo fiat iyo crypto aniga fiat waa samaystay marka waxaad sameynaysaa meesha ay ku qoran tahay fiat ayaad ku dhufanaysaa fiat markaa ku dhufatid kadib set up new currency ayaad ku dhufanaysaa set up new currency markaa ku dhufatid aniga already complete u yahay okay adiga marka waxaa sameynaysaa setupkaada ku dhufanaysaa kadib wuxuu ku siinaa option oo saan ah optionka waxa waaye bangigaada ayaad waxaad ku xiraysaa bangiga crypto si markaas lacag inaad kala soo baxdo si ay bangigaada ugu soo dhacdo okay page-kan ayuu ku keenaa marka page-kan markuu ku keeno waxaa sameynaysaa meel ku qoran tahay unique code BCB payments forex DAX MT limited iyo sort code iyo bank account halahan waxay gelinaysaa bangigaada ayaa tagaysaa bangigaada markaa tagtid waxaa ka soo qaadaysaa qof cusub oo hadda aad rabtid inaad lacag u dirtid oo kale ayaad ka soo qaadaysaa marka number 1 waxaa muhiim ah meesha ay ku qoran tahay HZ kulli ma arki kartaan laakiin waa mid aan gooni ii waay kulli adigu ku siinaa HZ waxa tiro ku siinaa xaggaas you must waa inaad include sameysaa codekaas haddii kale lacag markii aad isku soo dirtid waxaa laga yaabaa lacagahaada inaynu kusoo dhicin bangigaada marka fadlan make sure inuu saxsan yahay wax qaladna ha sameynina okay sort code iyo account number markaa gelisid iyo magaca bangiga aad gelisid kadib waxaa halkaas kusoo diraysaa $1 ama $2 adi lacag yar ama $1.5 oo dollar ayaad waxa ugu diraysaa qoladan oo crypto
marka hadda aan idin tusina aniga waxaa diray kaadka dataga lacag waxaa isku soo diray aniga deposit 3 pound waa $3 camal ayaa kaarka bangiga ku soo diray ayaa waxaa isku soo diray aniga 3 pound oo wadankan Ingiriiska okay dhankaas markaa ka soo gudubtid oo labadaba set up as samaysid waxaa arkaysa markaa tagtid account qaybta fiat wallet ayaa ku soo koraayo fiat wallet-kayga hadda aan waxa ku jiro ever waxaa sameynaynaa haddana waxaan idin tusinaa qaabka marka coinkaas iskaga gadi lahayd haddii aad faa'iido ka heshid iyo haddii oo suuqiisa hoos yahay coinka sidaa iskaga gadaysa waxaa kamid ah marka coinka magaciisa ayaad ku dhufanaysaa saa had ujeedaan anigu waxaa joogaa coinkan ayaa rabaa inaan iska gado waxaana ka haystaa 10 xabo coinka markaa soo kiciyo wuxuu tusinaa lacag 47 pound markaa rabtid inaad iska gadid waxaa ku dhufanaysaa qaybta ay ku qoran tahay crypto wallet markaa ku dhufatid kadib wuxuu ku tusinaa lacagta 45 pound iyo 10 xabo aad rabtid inaad iska gadid okay qaybta hoosena waxaa ku qoran sell ku qoran markaa ku dhufatid waxay gelinaysaa pinkaada ama passwordkaada aad ku soo gali jirtay ayaad halkaas gelinaysaa passwordkaada markaa gelisid kadib wuxuu ku dhahaa you have sold waa iska iibisay sida hadda u jeedaan biko waa iibiyey hoosna waxaa ku qoran meesha rabtid screenka ka taabo si aad page-ka ugu noqotid okay page-ka waa kusoo noqday waa aragtaan hadda ever waa lacagta ii saaran biko sababtoo waa iska gaday marka hadda waxaa rabaa marka inaan idin tusiyo sida lacagta aan ugu soo baxsan lahay okay hadda fiat wallet-kayga hadda waxaa ku jiro 45 pound iyo 60 b marka horena wuxuu ahaa ever 45 pound ayaa wallet-kayga hadda ku jiro okay qaybta wallet-ka marka ku dhufanaa wallet-ka markaa ku dhufto option wuxuu siinaa transferka markaa imaado waxaa haystaa laba option deposit iyo withdraw lacagta rabaa marka inaan kala soo baxo waxaa sameynaa withdraw ayaa ku dhufanaa withdraw markaa ku dhufta kadib waxaa ku dhufanaysaa bangigaada ayaa ku dhufanaysaa meesha withdraw now ayaa kusii dhufanaysaa optionkan ayuu ku siinaa kadib withdraw now markaad tagtid halkaas ayaa waxaa ku jiro bangigayga saa ujeedaan waa Barclays waaye waxaa lii ogol yahay 360 kun oo wadankan lacagta Ingiriiska haddii aan rabo mar walba inaan wax iska gado bil gudaheeda okay halkaas ay ku qoran tahay 100 GB lacag 100 ani ugu jirto sababta waxa gaday waa 45 pound waay 45 pound ayaa la rabaa marka inaan ku qoro okay lacagnan waxay ugu jirtay 45 pound iyo 60 b marka waxa sameeyay coin kale ayaa iska gaday labado kale ayaa iska gaday hadda ugu jeedaan qaybta hoose labadaas coin VVS iyo waxa gaday Gala marka haday aan tusinayo kala leeyahay waa ku dhufanaysaa coinka sell ayaa leedahay kadib halaha arabtid ayaa halkaas ku sii qoraysaa bacdi sell ayaad ku dhufanaysaa marka hadda lacagti total waxay isku tagtay 72 pound oo wadankan Ingiriiska ay ii noqotay sida aad ugu jeedaan wali waxa jooga qaybta fiat wallet-ka withdraw ayaa ku dhufanaa labada option oo ku siiyo withdraw waa ku dhufanaa withdraw marka ku dhufto option-kan ayuu siinaa marka waxa waa minimum 70 pound daily minimum 72,000 oo lagu ogol yahay bishiina waxa waaye 360 kun waaye kadib waxaad tagaysaa meesha ay ku qoran tahay boqolka ayaad ka tirtiraysaa sababtoo lacagta total 100 maahan meesha ay ku qoran tahay max ayaad ku dhufanaysaa hadhowda tirada lacagtaas ayaa ku soo fuulayso meesha oo boqolka ka yahay max ayaa hadda ku dhufanaa sida u jeedaan waxa soo fuulay max 72 pound iyo 77 b qaybta hoos ayaa u soo dhaadhaca kadib waxa ku dhufanaa confirm marka ku dhufatid sidoo kale haddana wuxuu ku weydiinaa passwordkaada ama pin numberka aad ku save garaysatay waxa hadda la sugaanaa inay review ay sameeyaan hadda fiatkayga waa aragtaan lacag dhan kuma jirto waxaana ku jirto waa ever 72 labadaas baan waxay qaadanaysaa adiga muddo 3 saac 4 saac kaarka bangiga adiga oo ama wadanka aad joogtid ayay ku xiran tahay laakiin wadanka aad joogo 3 saac ama 4 saac gudihiisa lacagtaas kaarkayga ayay ku soo dhacaysaa haddii aan weli subscribe ii saaran fadlan subscribe-ka ii saar video ayaa maalin walba idiin soo geli doonaa insha Allah Binance iyo crypto wixii ku saabsan marka fadlan haddii aad weli ugu cusub tahay subscribe-kana ii saar gambaleelkana furo si aad u noqotid qofka koowaad oo muuqaalkayga soo gaaro videogan haddii uu gaaro 1000 like waxaa community-ga ku soo kordhinaa in aan siiyo wax la yiraahdo giveaway marka make sure asxaabteeda in videogan uu gaaro 1000 like aad u mahadsantiin asxaabteeda waa inoo kulan dambe wacan wanaagsan